weli miyaad aaminsan tahay in kolestaroolka uu ku dhaco dadka cayilan oo kaliya? bismillaah, magacaygu waa Dr. Cabdiraxmaan Cali Caraaye. halkan waxaan idinkula wadaagayaa wacyigelin ku aadan kolestaroolka. dufanka dhiigga noocyadiisa waxaa ka mid ah total cholesterol oo loo yaqaan kolestaroolka guud, kolestaroolka xun oo loo yaqaan LDL cholesterol, kolestaroolka wanaagsan oo sidoo kale loo yaqaan HDL cholesterol, iyo nooc kaleete oo la yiraahdo triglyceride. sidoo kaleete dadka u nugul kolestaroolka waxaa ka mid ah dadka cuna cunooyinka aan caafimaadka lahayn taa oo ay ku badan tahay dufanka, dadka dhaqdhaqaaqooda oo yar yahay oo sedentary lifestyle-ka la nool, dadka caba sigaarka ama khamriga, dadka la nool xanuunka sokorowga, dadka qaba xanuunka loo yaqaano hypothyroidism-ka oo ku dhaca qanjirka thyroid-ka, dadka la nool xanuunada raaga sida keliya xanuunka iyo beer xanuunka, iyo dadka qaba kolestaroolka ku yimaada dhaxal ahaanta. sidoo kaleete waxaa u nugul dadka isticmaala daawooyinka loo yaqaano steroidska. inta badan xanuunkan kolestaroolka bukaanka wax calaamad ah ma muujiyo, waxaana ka dhalan kara taas cawaaqib ku yimaada xididada dhiigga qaado, taa oo loo yaqaano atherosclerosis, taa oo sababi doonto in qofkii wadne xanuun uu ku dhaco, stroke uu ku dhaco, cadaadiska dhiigga oo sare u kaco, iyo xididada dhiigga ee siiya lugahoo kaleete ee xirmaan. sidee looga hortagaa loona maareeyaa xanuunkan? waxyaabaha muhiimka ah ee bukaanada la nool xanuunka loo yaqaan dyslipidemiyada ama kolestaroolka waa in qofka uu cunaa cunno caafimaad leh, kana fogaadaa cunooyinka ay ku jirto dufanka noociisa xun, qofka uu sameeyaa jimicsi joogto ah ugu yaraan maalinkii 30 daqiiqo. sidoo kaleete waxaa muhiim ah qofka inuu la socdo miisaankiisa. haddii qofka uu cabo sigaar sidoo kaleete waa inuu joojiyaa, iyo khamriga sidoo kaleba. haddii bukaanka takhtar daawo uu usoo qoray sida daawooyinka loo yaqaan statiniska uu si joogto ah u qaataa, lana socdaa takhtarkiisa.